waxaan arkay ree aakhiraad laakiin qofna ima aaminayso. waxa ay ahayd habeen qabow oo aad u dabeyl badan. waxaan waday gaariga aniga oo highwayga maraya. waddada inta badan waxa ay ahayd mid faaruq ah sababtoona cimilada oo xun darteed. geesahana waxaa iga xigay kayn aad u madow. aniga oo gaariga aad u wadaya maadaama aan daahsanaa ayaa si lama filaana waxaan u arkay islaan xoog badan oo horteeda ka soo baxday. xaggayga ayuu ka soo baxday waxayna soo istaagtay horteeda. waxaan qabtay gaariga bareegiisa si aan u istaajiyo. waan istaajiyey gaariga. waxay ahayd naag dheer oo xoog badan. waxaan ku fekeray maxay ka samaynaysaa meeshaan saacaddan. naagta waxa ay ku soo dhowaanaysay gaariga xaggiisa. waxayna bilowday inay micnaha oyso ayna igu soo garaacdo gaariga daaqadiisa ayadoo aad u qaylinaysa. waxayna ku qaylinaysay bliis ama fadlan ii badbaadi cunugayga. fadlan ii badbaadi cunugayga. waxaana ku fekeray in ay tahay qof waalan. anigu waan isku dhaxyaacsanaa maalinteeduna ma wanaagsanayn. kadib markii aan ogaaday in xaaskayga ay ahayd mid aniga khiyaanayso oo niman igu hoos wada. kadib markaan ogaaday in xiriir hoose ay la yeelatay saaxiibkayga qaaliga ahaa. waxaana u dhaqsanayay in aan kala hadlo arrimahaas. laakiin naag waalan ayaa iga soo horbaxday aniga oo aan ku tashanaynin weliba meel aanan ka malaysanaynin. waxaan isku dayay in aan ayada iska indhitiro si aan u baxo. laakiin si lama filaan ayaan indhaheedu ugu dhaceen. waxaana ka arkay duruuf iyo in ay ka muuqato niyad jab. waxaana dareemay in ay ku sugan tahay ayado khatar. laakiin maxay uga baahan tahay aniga in aan caawiyo. waxaan ka soo degay gaariga si aan ayadu u arko waxa ku dhacay ama aan uga wareysto. isla markiiba waxay bilowday in ay gaariga xaggiisa ay ka dhaqaaqdo. gabadhii waxay u dhaqaaqday dhanka iyo kayntii. aniguna waxaan ahaa mid ayada la hadlaaya. isla markiina waxaan bilaabay in aan daba raaco. laakiin weli ayadu waxa ay ku qaylinaysay fadlan ii badbaadi cunugayga. fadlan ii badbaadi cunugayga. laakiin ma ogeyn aniga waxa meesha ka socda. isla markiiba waxaan bilaabay in aan daba raaco ilaa ay ka midhoqdo. isla mar si lama filaan ah ayaa waxaan u arkay gaari meel keen ah ku dhacay oo shil galay. isla markii oo aan gaariga arkay waxaan hareeraha ka waayay gabadhii iga soo waday laamiga ama highwayga. waxay ahayd mid iga qarsoontay gebi ahaanba oo aan goobta ku sugnayn. xaggii aada ayada. su-aashaas ayada oo maskaxdeeda ay ka dhex guuxayso. isla markiiba waxaan isku dayay in aan raadiyo ayada. laakiin si lama filaan ayaa waxaan u maqlay cunug yariisa oo gaariga dhexdiisa ka dhex ooyay. waa soo baxay oo waxaan imaaday gaariga gudihiisa. isla markiiba waxaan furay gaariga daaqadiisa. waxaana ku dhex arkay wiil yariisa oo aad u ooyaya una baahan caawinaad. waxaan gaariga ka soo dhex bixiyay wiilkii yaraa ee ooynayay. laakiin waxaan ku arkay gaariga dhexdiisa wax aad iiga nixiyey. waa lafaha gabadhii lafa jajabsan oo ah gabadhii iga soo waday highwayga oo ku sugan gaariga shilka galay dhexdiisa. waxay ahayd ayada mid suuxsan oo ku dhex sugan gaariga dhexdiisa laakiin waa ay nooleed. laakiin tan sidee suurtagal ku tahay ayaan isweydiiyey. waxa ay ii soo wadda meeshaan ayadoo caafimaad qabta haddana waa mid suuxsan. isla markiiba waxaan wacay booliiska anigoo garaacay lambarka 911 oo ah kan booliiska lagala xiriiro. gabadhii waxaa la dhigay isbitaalka. wiilkeedina waxa uu ahaa mid aan waxba gaarin dhab ahaantii. dhakhtarka waxaan u sheegay sheekada laakiin ima rumaysanin maadaama gabadha markaas xaalad aad u daran ay ku sugneed. waxa ay gashay kooma. waxayna ka soo baxday koomadii ay gashay 3 bilood ka bacdi. waxaan u sheegay wax walba iyo sida ay u dhaceen marka ay soo kacday. laakiin ayada waxba ma xasuusato nasiib darro. waxaa maskaxdeeda ka dhaadhici lah waxa maalintaas dhacay dhab ahaantii. wixii aan arkay ma waxay ahaayeen ayada ruuxdeeda mase waa jaceylka hooyada ay u qabto carruurteeda ayaa aniga igu soo hagay meeshaan.